السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan naga daawanaysan waa SNN oo idin kaga imaanaya labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul. waxaad nagala kulantaan ama naga heshaan barnaamijyo xiiso badan oo arrimaha bulshada ku saabsan. maanta waxaanu idin haynaa laba barnaamij oo aad xasaasi ah oo u baahan in aad looga taxadaro. labada barnaamij oo caawa halka ku qaada dhigi doono waxaa ka mid ah labadan barnaamij oo aan maanta ku qaada dhigi doono halkan waxaa ka mid ah barnaamijka koowaad oo ah warbixin ka soo baxday Minnesota Department of Health oo lagu wacyigelinayo dhammaan bulshada reer Minnesota oo aan rabno in ay warbixintaasi gaarto bulshooyinka Soomaaliyeed taasoo ah labadii usbuuc oo la soo dhaafay State of Minnesota waxaa ka dhacay geeri aad u tiro badan oo ka timid xagga caafimaad darrada taasoo ah hargab aad u saameeyay State of Minnesota. hargabkaas oo ay u dhinteen dad lagu qiyaasay 16 qof. waxaase isbitaalka la seexshay labada usbuuc dad dhan 750 qof halka ay hadda ay ku jiraan 8 qof isbitaalada State of Minnesota. hargabkan oo ah hargab aad u soo noqnoqday alana waqtiyadan oo kale marka uu winterka gudihiisa dadka ku dhaco. hargabkani waa hargab aad looga taxadaro. waa hargab haddii uu kugu dhaco aad mudan tahay inaad tagto isbitaalada khaasatan meelaha emergency-ga. hargabkan badanaa dadku way fududaystaan wuxuuna aad u saameeyaa hargabkan aad ugu dhacaa dadka waayeelada ah. dhammaan dadka Minnesota Department of Health ay soo gudbiyeen oo halkan ama ku geeriyooday ama isbitaalada la dhigay ama haddaba yaalla dhammaantood waa dad waaweyn kuma jiraan caruur. arrintaasi waxa ay leedahay aragti dheeraada in lagu fiirsho dhammaan qofkii hargabka isku arka waxaa laga codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u tago xarumaha gargaarka degdega ah iyo inuu la xiriiro takhaatiirtiisa. hargabkan yaryaraysi ma leh dad badan oo Soomaaliyeedna waa ku dhacay balse ilaa hadda wax geeri ah oo saameyn hargabkan oo ku saameeyay lama sheegin balse waxaan rajaynaynaa dadweynaha Soomaaliyeed inay aad uga taxadari doonaan khaasatan dadka waaweyn. sidoo kale barnaamij ay City of Minneapolis soo saartay oo looga hadlayay nadaafadda ama baaritaanka meelaha ganacsiyada guud ee State of Minnesota. sida la socotaan State of Minnesota iyo City of Minneapolis dhammaan waxa ay leeyihiin inspections ama baaritaan bay leeyihiin. magaalo walba waxay gooni u leedahay baaritaanka makhaayadaheeda meelaheeda dukaamada iyo dhammaan meelaha cunnada lagu kariyo ama lagu gado. waagi hore waxay ahaan jirtay State of Minnesota iyo Minneapolis in waagi hore waxay ahaan jirtay in ay city-gu soo dirto shakhsigaas oo baaritaan sameeya. baaritaanka uu sameeya ama makhaayad ha ahaato ama dukaan ha ahaado ama meel wax lagu kariyo kale oo xaniban ha ahaato ama meel cafe lagu sameeyo ha ahaato meel walba oo lagu cuno ama lagu cabo ama wax lagu kariyo waxaa imaan jiray inspector ama qof baara caafimaadka hubiyana meeshan inay tahay meel caafimaadka lagu waardiyeyn karo ama wax nadiif ay yaalaan. waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad loo baari jiray waxaa ka mid ahaa nadaafadda dhulka ama alaabta dukaanka ama makhaayadda markaas taala. sidoo kale waxaa aad loo baari jiray tambarajarada ama qaboojiyaha ama kuleeliyaha. mid walba waxaa la fiirin jiray qiyaastii tambarajarka loogu talagalay in laga helo. arrintaas waxay markii hore ahaan jirtay wax si hoose loo sameeyo oo u dhaxaysa magaalada iyo marka ganacsiga markaa jira.
hadda waxaa soo kordhay City of Minneapolis laga bilaabay in inspectorku uu ku imaan doono oo baaritaan ka sameyn doono dambiyada uu kugu helo ama nadaafadda dhulka ha noqoto ama freezer-kaaga oo temperature-ka la raba aan qabowga aan gaarsiisnayn ama cooler-kaaga oo aan temperature-ka la raba aan gaarsiisnayn ama kululeeyahaaga oo aan temperature-ka hor gaarsiisnayn ama alaabtaada oo wasakha ama qalabka aad wax u isticmaalayso wasakha ama shaqaalahaaga oo si nadaafad darro ah wax u qabanaya ama dhammaan wax walba oo ku saabsan ganacsigaas oo sidii la rabay oo nidaamka ah ama aysan lahayn qaab wax loo nadiifiyo iyo nidaam adiga ku degsan uusan lahayn oo lagu helo waxay ahaan jirtay in si hoose arinteeda loo xaliyo oo qoraal lagu soo diro laguna sheego muddo inta la eg waa inaad ku samaysaa waxyaabahaas ka halaysan arinta kadibna inspectorka ama ninkii qofka markaas baaraya caafimaadka waxyaabaha ka khaldan marka ganacsigaaga wuxuu sameyn jiray warqad buu soo diri jiray warqadda markii la sameeyay dib ayuu u imaan jiray kadib wuxuu fiirin jiray waxyaabihii uu ku soo diray inaad dib u samayso kadibna waxay ahaan jirtay si fudud in loo xaliyo arintaasi marka maysan ogaan jirin publica ama bulshaweynta may ogaan jirin reer Minnesota City of Minneapolis waxay samaysay waxay u sameeyeen website-kaas waxaa lagu qorayaa ama lagu diyaarinayaa dhammaan dambiyadii ganacsigaaga laga helay iyo dambigu wuxuu ahaa laftiisa waxaa lagu sheegayaa koodkiisa lagu qorayaa magaciisa lagu qorayaa waxa ka khaldan baa lagu qorayaa ganacsi walba wuxuu leeyahay 100 dhibcood 100ka dhibcood maalin walba oo ganaax lagu siiyo iyo maalin walba oo wax khaldan laga helo ganacsigaaga khayadaada tukaankaaga meesha kafeega ku gadid iyo dhammaan meel walba oo cunno ah kaliya maaha wax ku kooban dadka minority-ga waxa ku jira dhammaan kambaniyada waaweyn oo dhan baa ku jira dukaamada waaweyn oo dhan baa ku jira meel walba oo cunno ku taala lagu sameynayo ama lagu gadayo ama lagu karinayo 100 point bay haysataa ama ha yaraato ama ha weynaato 100ka point haddii uu ka yaraado oo heer aad gaartid in aad dhacdid 100 point waa imtixaankii intii lagu saxayay haddii aad wixii konton iyo ka hooseeya aad keentid waa dhacday waxayna keenaysaa in ay laga xiro ganacsiga laga xiro balse inta waxa sii dheer waagi hore waxa jiri si hoose in loo xaliyo hadda se waxa dadkii loo fududeeyay khaasatan reer Minneapolis loo fududeeyay in qofku ganacsiga uu marka cunada ka cunayo ama uu wax ka gadanayo nadaafadiisa in qof walba online uu ka arki karo dukaanka ka ganacsatid makhaayada wax ka cuntid iyo dhammaan meelaha cunada lagu sameeyo oo aad wax ka doonatid waxaad gelinaysaa adresska dukaankaas ama ganacsigaas ama makhaayadaas ama mataqaana baarkaas waxa soo dhan baad gelinaysaa wuxuu ku tusayaa in ganacsigani ganacsi nadaafadiisu liidato inuu yahay ama ganacsigani inuu yahay ganacsi mar walba nadaafadiisa marka inspectionka loogu yimaado ganacsi guuleystay inuu yahay barnaamijkan marka waxaan ugu talagalnay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan dad badan aan ogeyn ay ogaadaan dadka ganacsatadana ay iska ilaaliyaan markii hore hadaan la ogaan jirin hadda waalidin ogyahay kan ku neceb baa ku og kan ku jecel baa ku og qof walba inaad alaabtaada wasakhaysan tahay inaad shaqaalahaaga wasakhaysan yihiin inaad businesskaaga nadaafadiisu liidato waxa laga dhigay wax public ah oo qof walba arki karo oo qof walba taasi marka waxay keenaysaa oo arintan ay City of Minneapolis kulay ay mataqaana meesha loogu soo qoray dhibaatooyin badan bay keeni kartaa ganacsigu keeni kartaa midda koowaad waxa weeye in ganacsigaagii la ogaaday in aad tahay qof mar walba nadaafadiisu liidato oo halkaas waxa ku waayi doontaa customer aad u tiro badan sidoo kale waxa fududaanaysa in dadka ganacsigaaga ku kacsani ay fursad kaaga faa'iideysan karaan waxay doonaan kugu sameyn karaan ku dacweyn karaan ku dacaayadeyn karaan wax ka qori karaan
sidaas awgeed maaha wax dad gooni loogu talagalay, waa wax City of Minneapolis oo dhan ay ka siman tahay, qoladay doonto ha ahaato, maaha wax mataqaana community gooni loo dan leeyahay, balse saameyn badan bay waxay ku samayn doontaa dad badan oo dayaca ganacsigooda. marka maanta baraarujinta waxay naga tahay in qof walba oo reer Minneapolis ah oo ganacsi ku haysta Minneapolis in waxyaabaha violationka ama waxyaabaha khaladaadka oo businesska ka yimaada in wixii hore ku qarsoonaa inaysan mar dambe ku qarsoonayn oo ay cid walba arki karto, iyo dadka ganacsatada ah oo aan ku baraarujinayno in ay iska ilaaliyaan wax walba oo dib u keeni kara oo violation ah ama dambi ah, ama xagga nadaafadda ha noqoto, ama xagga cunno karinta ha noqoto, ama xagga qalabka la isticmaalayo frinjirada iyo kuwa kululeeyaha iyo kuwa qaboojiyaha iyo frinjir qabow oo mataqaana temperature-kiisa ka hooseeyo iyo waxaas waxay u keeni kartaa dhammaan ganacsatada in ay ganacsi u ka xirmo. sidaas daraadeed dhammaan waxaan rajaynaynaa qof walba oo ganacsada ah oo luqadda aan hadda anagu ku hadlayo fahmaya inuu taxadarka muujiyo, waxyaaba si aad u fahamtaan sida ay wax u shaqeynayaan. hadduu alla idmo waxaanu linkii aan soo dhigi doonaa hoos, linkigaas ayaad insha allahu tacaala gelaysaan iyadoo detailsa saad u ogaataan. waxaana rajaynaynaa in ay tahay arrintani arrin fursad fiican oo runtii ku dhiirigelin doonta, oo aad ganacsigaaga si u horumaro dadkuna ay caafimaad u helaan, inaad adiguna ka faa'iidaysatid barnaamijkaas ay City of Minneapolis samaysay, oo caafimaadkeeda adiguna aadan sumcadda iyo businesskaaga iyo adiga midna aadan dilin, oo aad wixii markaa lagaaga baahnay si sumcad aad uga hesho online-ka ama public dadka u daawadaan, inaad sumcaddaada ilaaliso, sumcadda community-gaaga ilaaliso, iyo sumcadda ganacsigaagaba. marka waxaan rajaynaynaa inaad labadaas barnaamij runtii aad isaga fiirisaan. midii hore ahayd tii caafimaadka, oo aan rajaynayno qofkii isku arka qufac aad u tiro badan inuusan u malaynin qufacyadii hore oo caadiga ahaa. waa qufac halis ah oo magaalada ka jira oo dadka waaweyn ku dhaca, oo marka runtii lasoo gaabiyo influenza la yiraahdo. marka arrintaasna yaan la fududaysanin oo isbitaalada dhaqsaha loo aado, ganacsiyadana ha la ilaaliyo. anigoo ah Maxamed Wardheere waxaan idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.